asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waan idin salaamay dhammaan walaalaha ku xiran janaalka soo dhowaada. casharkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay biin. ka waran xubintaada oo aanan awoodin inay dhaqaaqdo. biin waa tactic aad u adeegsan karto inaad ku joojiso hal xubin iyo wax ka badan. sida hadda meeshan idinka muuqato, fardaha waa biin, sababtoo ah haddii uu meesha ka baxo waxaa dhiman doona kuwiinta. kuwiinta qiimaheedu waa 9 bointi, bishopka qiimihiisana waa 3. meeshaasna waxaad ku wey doontaa xubin qaali ah. sidaas awgeed fardaha waa biin. waxaa jiro 2 nooc oo biin ah. mid waxaa la yidhaahdaa absolute biin, midka kalena waxaa la yidhaahdaa relative biin. ayagana maxay yihiin waan baran doonaa. absolute biin, exambalka hortiina ka muuqda hadda, fardaha waa biin. waxaa ka dambeeya waa boqorkii. haddii uu isku dayo fardahan inuu meesha ka baxo, waxaa dhici doonta inuu boqorka cad uu galo jeeg. taasna sharci ma aha. sidaas awgeed fardahan marnaba ma dhaqaaqi karo. biinka noocan oo kale waxaa lagu magacaabaa absolute biin, maadaama fardaha uusan marnaba samayn karin dhaqaaq. kuwiintaas ma laha wax difaaca, oo haddii aad is leedahay fardaha ayaa difaaco, fardahaasi waa absolute biin, marnaba ma dhaqaaqi karo, lama ogolo inuu dhaqaaqo, sharcina ma aha. relative biin, haddii aan isku dayo inaan soo koobo waxa laga wada relative biin waxa ay tahay, ka soo qaad xubintaada inay ku jirto biin, isla markaasna xubinta biinka ku jirto lagu ogol yahay inay dhaqaaqdo. macnaheedu waxay tahay xubin kasta oo biin ku jirto ma ahan macnaheedu inaysan dhaqaaqi karin. hal mar ayaysan dhaqaaqi karin waa markii ay tahay absolute biin. macnaheedu waxay tahay waxaa ka gadaaleeyo waa boqor, oo haddii xubintan meesha ay ka baxdo wuxuu geli doonaa boqorka jeeg. taasna sharci ma ahan. so absolute biin sharci ma ahan, laakiin relative biin inaad dhaqaaqdo waa sharci. balse waxaa laga yaabaa haddii aad dhaqaaqdo xubintaas biinka ku jirto inaad weyso xubin kale oo ka qaalisantaa. exambalkan sida idinka muuqato, askarigan waa biin, balse ogow biinkan ma ahan biinkii hore oo absolute biin ma ahan. waxa ka gadaalayo askariga waa kuwiin. sidaas awgeed askarigan hadduu dhaqaaqo waxaa la qaadan doonaa waa kuwiinta, balse sharci ma ahan oo qasab laguguma lahan inuu askarigaas meeshaas istaagnaado. adigaa doorashada leh. haddii aad rabtid waad wadi kartaa, oo kuwiintaada haddii aad sacrifice samaynaysid maybe waad samayn kartaa, laakiin qasab ma ahan askarigan inuu meeshaas taagnaado. ogow waa relative biin. exambalkan kale, caddaanka wuxuu dilay fardaha, balse kuwiinta madow qalad ee gashay waxay sii dashay fardihii. halkaasna waxaa lagu qabtay bishop b5. ugu dambayntii waxaan ku soo gabagabeynayaa ciyaar caan ah oo ay dheeleen alaqayn iyo kabablanka. kabablanka wuxuu wataa madowga, caddaankana waxaa wato waa alaqayn. haddii aan ciyaarta qiimayno, qalcaddan waxay ku jirtaa biin, sababtoo ah qalcaddan ma dhaqaaqi karto. haddii ay dhaqaaqdo waxaa uu weyn doonaa kuwiinta. saas awgeed muufka ugu horreeya uu u dheelay alaqayn waxay ahayd f4. kuwiintii ayuu weeraray, kuwiintii waxay tagtay g7. bishopkana waxa uu dilay fardaha, oo waxa uu meesha ka saaray mid ka mid ah difaacii, sababtoo ah qalcaddan waxaa difaacayay fardahan iyo kuwiinta. sidaas awgeed hadda waxaa soo haray hal difaac oo ah kuwiinta, mana caawin karto oo qalcaddan waxay ku jirtaa biin. marka isku day positionkan waxa uu dheelay alaqayn. alaqayn wuxuu dheelay f2. waaw, waa cajiib. balse haddii aad is leedahay qalcaddan waxay ku jirtaa biin, maad intaad qalcaddan kale soo qaatid ku qabatid, taas waa ay qaldan tahay, oo qalcaddan waxaa lagu qaadan doonaa jeeg. waxaadna ku qasban tahay inaad dishid, halkaasna waxaad ku weysay jaaniskii. balse alaqayn wuxuu sameeyey f2, kuwiin f6. kuwiin f6 sababta u dheelaya waxay tahay inuu jeeg dhaho si uu qalcaddan u badbaadiyo, balse waa laga diiditaa g5. ugu dambayntii alaqayn wuxuu dheelay c1. halkaasna waxay ku tusaysaa awoodda ay leedahay biin, oo kabablanka waa uu isdhiibay. ciyaartan waa laga guulaystay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. fadlan janaalka sabskraib ha la saaro, laag ha la saaro. waxay inoo tahay dhiirigelin. sheerna ha la sameeyo, oo dadka jecel jeesta inay bartaan ha loo sheer gareeyo.